السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحاب soo dhawaada meel walba aad joogtiin saaxiibada igu xiran. Asxaabe guri kale oo haddana oo dhisan oo villa ah oo isagana kaala arag loo dhisay. Adiga iska macquul waaye. Farsamada waxa waa moogtahay in oo marba si qofku wax loogu dhisay lacagtiisa. Waxaa laga yaabaa beryahan injineerkan aniga badbadiyay laakiin injineerka saaxiibkii waaye oo u kala kicin waaye iska fahmaya. kala kicisa la faarahan kala kicisa la injineerka uu kala kicinayo marka horta injineerka dadka waxay jecel yihiin moogtahay qofka farsamayaqaanka guryaha dhisay ama waxyaalaha dhisay inay ogaadaan ay aad u jecel yihiin. Injineerka magaciisa waxa la Anwar. Marka injineerka saaxiibkii wax isdhaniyo iyo kala kici isagana waa kala kacsan yahay farsamadiisana waa kala kacsan tahay. Marka anigana wuxuu ugu dhaayay asxaabtaadan la wadaag inta guri aan dhisay haddii malay inaan igu sawir ay tahay. Marka asxaabta u jeedin guriga horta guri villa waaye oo ilbaab banaan leh oo hadda dhismihiis ku socdo gabagabo waaye waana dhammaada muuqaalka mar hore waa laakiin dukumiintiyada wuxuu ka mid yahay guryaha uu dhisay oo ka mid yahay oo injineerka dhisay. Marka guriga waa kan waa guri villa ah oo kaali arag markaan waa markii guriga la dhameeyay kaliya waxa u dhiman in la xaaqo oo guriga la soo dhaqo iyo nadaafadiisa seen la taa farsamadan balka barmaba wax ka soo dhaha. Marka waa kaay insha Allah guriga kale oo dan qurux badan aad u jeclaanaysiin oo arkaysiin injineerkana anaan yahay saaxiibkii waay marna walaalkay waay ha ka cabsanina soo dhaweyn qataroonay sameeyna oo kal ilaabe faanteen qolkan qolka ilbaab banaanka waa ilbaabkaas banaan ayaa macna ilbaabkaas banaan waxa loogu talgalay inuu dukaan noqdo. Kan waa musqushi qolkan waa qolkii fadhiga iyo qol ilbaab banaan oo banaanka maxaysa qolka fadhiga kaligiis waxa laga yaabaa laba qol inuu yahay mar qaarkood. Kaas waa qolkii fadhiga hadda kaamirada la galnay waa qolkii fadhiga muuqaalan soo duubay kaliya anay editinka iyo codka leeyahay faanteen. qolkaas waa qolkii fadhiga u jeedin guriyaha qaar waxa macna qof basiya loogu dhisaa abuu lacagtiisa qurxis. Meeshaan waa meel store taan jeclahay tanna waa jikadi si weyntan dareemoyaa inay jikada tahay fahmuusin inay jikada tahay midaan hadda kaamirada aan la dhaxmaroono. Kanna waa qol kale meeqamarona qol fadhiga iyo qol kale oo ilbaab banaan iyo qolkan saddex marona saddexdaas mujeedin mutaleelka hadda waxa lagu shubay macnaha mutaleelka ku saar carwi waxa lagu shubano waa la sameeyay markii la sameeyay kadib shamiindadii wixii magaarayso cara lagu shubaa marka waa la tira mujeedin ninkaas soo yeelo saas aleela. Kanna waa qol kaleete waxa marona qol banaanka qolkan afar qol marona kanna waa qol kale oo isagana hadda mujeedin mutaleelka saas loo nadiifinayaa. Guryaha marka saas ay yihiin waana guriga qatare oo casri oo kaali arag iska fahmaya warkeyga. Guriyana waa qolkii shanaad ama qolkii afraad soo jeeya. Kanna waa musqushi oo guriga ku yaala. Marka guriga wuxuu ka kooban yahay qolka ilbaab banaanka qolka fadhiga qolkaas iyo qolkan iyo storekiis iyo musqushiis adigina lix qol yahay aan jeclahay guriga. Marka guryaha farsamooyinka waa kaliya moogtahay qof bas wax loogu dhisaa lacagtaan wax qurxiso qof walba baysidiis abuu qurxiso guriga u jeedin fadhigan u jeedin waa fadhi daansi la fadhi qurux badan oo guriga leeyahay. Gurigana waa kan ilbaabkiisa wixiisa waa dhamaaday waa guri dhamaado waaybo. Marka asxaabta xogo meesha laga dhismo weydin laakiin ay la tahay ka xad dhaxdeed leenay tahay gurigana guriyan waay hadaan qabyo ahay haddana waa dhamaaday. Waxaan leeyahay marka injineerka oo kala kicino yahay idinkana ka faa'iideysta saaxiibayaal meel walba ay joogto injineer Anwar waa la soo dhaweynaa wixii faahfaahin kale ugu baahatiin dhismane isagaani siinaayo kala kicisa daamqashid waa kan muuqaalka camal waa nabadgelyo asxaabey.